الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأن دين سلامي دمان بعد جعل وحبرشة كران أرض الصومالية ميل بيجوغان waxaan idin leeyahay soo dhawaada. maanta waxaan bilaabaynaa maadada biology-ga kalaaska form 2-ga asla socon insha Allah. waxa wixii like, subscribe, share adinka idin ogna insha Allah hadii video aan sii gudgalno casharkeena biology. Okay, general characteristics of fungi waa chapterkii koowaad cashirkiisii koowaad. waxaan ku bilaabaynaa general characteristics of fungi, dabeecadaha guud ay leeyihiin fungi-ga. The fungi are eukaryotic organism. fungi-ga wuxuu ku tirsan yahay noolayaasha loo yaqaano eukaryotic organism-ka. Most are multicellular organism. waa badankoodu waxay yihiin multicellular organism, waa kuwa leh unugyada fara badan. like waxaa ka mid ah geedka loo yaqaano mushroom-ka ka mid ah. while some are kuwa kalena waxay yihiin unicellular, waa hal unugle. like ayagana waxaa ka mid ah yeast-ga ka mid ah. Deposited it share waxay isugu wadaagaan diversity in characteristics, waxay isugu wadaagaan ama ku kala duwan yihiin dabeecadahooda. Yet it shares waxay isugu wadaagaan markaas same general characteristics, dabeecado qaar guud isugu wadaagaan. These characteristics markaas dabeecadahani are explained waxaa lagu sharxay below qaybta hoose soo socda. ku celiyo general characteristics in fungi, dabeecada guud ay leeyihiin markaas fungi-ga. The fungi are eukaryotic organism. fungi-ga waa noolayaasha leh noolayaasha u naqaano eukaryotic-ga. noolayaasha laba loo kala qaybin jiray, waxaan dhihi jirnay prokaryotic iyo eukaryotic. fungi wuxuu ku tirsan yahay markaas eukaryotic organism. Most are badankooda multicellular organism, waa kuwa leh cells-yada fara badan. like waxaa ka mid ah kuwaas mushroom-ka ka mid ah. While some are unicellular, waa qaarkood waxay yihiin unicellular waaye. like waxaa ka mid ah yeast-ga ka mid ah. Deposited in diversity waxay ku kala duwan yihiin in characteristics, dabeecadahooda. Yet it shares markaas waxay wadaagaan some general characteristics, dabeecado qaar oo guud ay ku wadaagaan. These characteristics markaas dabeecadahani are explained waxaa lagu sharxay below qaybta hoose lagu sharxay. kii koowaad markaas dabeecadda waxaan leenahay nutrition in fungi. Fungi are heterotrophic organism. fungi-ga wuxuu ku tirsan yahay noolayaasha aan samaysanin cunadooda. noolayaasha waa la kala qaybin jiray, waxaan dhihi jiray heterotrophic iyo autotrophic. heterotrophic waxaan leeyahay waa noolayaasha aan samaysanin cunadooda. autotrophic waxaan leeyahay waa noolayaasha samaysta cunadooda. kalaaskii form 1 ka lagu barnaa. and get waxay helaan their nutrients, nafaqadooda, by absorbing ayagoo soo dhuuqay markaas organic molecules organicate from their environment, kuwaasoo ka helay markaas environment-gooda ama deegaanadooda. Fungi secrete. fungi waxay soo daayaan enzymes dheecaano into their food, cunadooda. and they then ka bacdi absorb waxay soo dhuuqaan the digested nutrients and nafaqyada la soo dheefshiiday through markaas ayagoo si toos u raacayo their cell wall, gidaarada unugyada ay leeyihiin. like waxaa ka mid ah animals, xayawaanada ka mid ah. fungi markaas store wuxuu keediyaa energy, tamar uu keediyaa in the form of glycogen, asoo uu sameynaa markaas sokorta nooca loo yaqaano glycogen taasi uu sameynaa. next markaas dabeecadii labaad ay leeyihiin fungi-ga. fungi waxaan dhahnay characteristics are explained below waxaa lagu sharxay qaybta hoose. mid koowaad waxaan kusoo sheegnay nutrition in fungi aan soo dhahnay. mid labaad waxaan leenahay markaas structure in fungi, qaab dhismeedka ay samaysan yihiin fungi-ga. the body jirka of multicellular fungi, kuwaasoo leh markaas unugyada fara badan, is composed waxay ku kooban yihiin filaments, waxyaabo faro ay ku kooban yihiin. coiled filaments loo yaqaano hive u naqaano. singular ahaan waxaan u dhahaynaa hive aan leenahay. The cell wall markaas gidaarada canuga of hive contain waxa ku dhex jiro
a polysaccharide sokoryo fara badan. Poly means waxa waaye many, saccharide waxaan leeyahay sugar waa sokor. Polysaccharide sokor fara badan ay kooyin. Cholet sokortaas oo u naqaan markaas GT na leeyahay. The presence markaas waxa ku kooban ama ku dhex jira of GT-ka distinguishes waxay kala saaraysaa the cell wall gidaarada canuga ama qeexaysa gidaarada canugyada of fungi from those plants kuwaasoo ku imaanaya markaas dhirta which have kuwaasoo leh markaas cellulose ay leeyihiin. Reproduction in fungi waa qodobkii saddexaad ee fungi waxaan naanay characteristics of fungi markaan fiirnayno saddex heerood ama saddex qodob aan soo fiirnay. qodobkii koowaad waxaan soo dhaanay nutrition in fungi aan dhaanay, kii labaad waxaan dhaanay structure in fungi aan dhaanay, kii saddexaad waxaan dhaanay reproduction in fungi. Most fungi reproduce waxay u tarmaan both labadaba. waa reproduction waxaa loo qeybi jiray laba qaybood, maxaa la dhihi jiray sexual reproduction iyo asexual reproduction. marka fungi labaduba u tarmaasi, sexual uu u tarmaa, asexual uu u tarmaa. okay aan gudgal markaas qodobkii ee oo loo yaqaano asexual reproduction in fungi. fungi reproduce waxay u tarmaan asexually ahaan markii loo fiiriyo through ay uga maraan markaas 3 methods, 3 methodyo ay maraan. 3daas method waxaan u naqaanaa these including kuwaas waxaa kamid ah binding ka mid ah qodobka koowaad, fragmentation ka mid ah binding inuu sameysmado waxyaabo kuskus inuu sameysmo, fragmentation inay jawaan kala jabxid inay sameeyaan, kiilad waxaan leeyahay markaas spore formation inay sameysmaan. qodobkii koowaad aan ku hormar markaas binding waxaa leenahay is an asexual reproduction waa taranka leh asexual ka ah which is kaasoo markaas part of the yeast cell kuwaasoo leh markaas ku samaysan markaas ku qaban yeast cell of itself of spring to produce ay nafsad ahaantoo isbacrimiyaan to a small of spring of cell kuwaasoo leh markaas cellsyo oo yar. yeast to produce markay waxay soo saaraan through binding intaan afar process ay marayaan. afarta processyo ay marayaan waxaan u naqaanaa midkii koowaad waxaan leenahay mid oo ayaga isku sameysno oo aan leenahay midkii koowaad waxaan leenahay yeast cell aan leenahay, midka labaad waxaan leenahay developing band aan leenahay, midka saddexaad waxaan leenahay new band, midka afaraad chain of bands aan leenahay. waa maana soo qorin laakiin buug muqarrarka uu qoran yahay insha Allah meesha markaa fiirsid waa arki doontaa hadii ilaahay insha Allah. okay aan ka sii socdo markaas fragmentation waxaa leenahay is a type waa nooc fragmentation waxaa leenahay is a type waa nooc of sexual reproduction u tarmaan that kaasoo ku dhaca markaas when mycelium of fungi markay mycelium of fungi is physically broken part markay mycelium in fungi markay kala jabto qayb ay u jabto or fragmented mise ay kala baxaan. the fungus that cause markaas fungi sawa athlete food dadka ku dhaca orodyahanada ama dadka ordaga ku dhaca reproduce waxay u tarmaan this way weegaan u tarmaan. next markaas spore formation saddexaad waxaan leenahay spore formation or loo yaqaano sporolium or loo yaqaano sporulation yaa ka xaleen. saddexaad waxaa loo yaqaanaa spore formation or sporulation loo yaqaanaa. some fungi like rhizard kamid ah the common breed waxa caan ku ah markaas roodiga kamid ah mold reproduce asexual through ereygan mold waxaan leenahay rootiga inuu sameysmado waxyaabo oo u eg guryaha caarada ahaan u eg inuu ku sameysmado. reproduce waxay u tarmaan asexually ay u tarmaan through ay waraacay markaas the formation sameyshanka of spores ay u sameysmaan. in this structure markaas qaab dhismeedkani colled waxaan ku magacaabinaa markaas sporangium aan leenahay. spore maxaan leenahay ida small reproductive cell waa cell yar oo ku kooban containing kaasoo kuwa markaas small amount of cytoplasm and nucleus jira cadad oo yar cytoplasm iyo nucleus ay kooyin
when goortii spores are placed markii la dhigo in a variable environmental condition deegaan aan u wanaagsanin markii la dhigo they germinate waxay way tarmaan and grow wayna koraan a new hive u sameysmaa markaas meeshan kusoo askumeynaa insha Allah aad u mahadsantihiin